السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام يا أصحاب qaaliga ah meel kastaad ka joogtaan dunida daafaheeda. Fideogeena wuxuu ku saabsan yahay miraha yicibka loo yaqaano. Waxaan ka hadlaynaa fawaa'idka uu yicibku jirkeena u leeyahay, magacyada yicibka iyo xageeba laga helaa. Asxaabay, waxaa laga yaabaa dad badan oo naga mid ah yicibba inaysan aqoon. Marka waxaan idin leeyahay khayraadka dhulkeena yaala iyo miraha dabiiciga aan ka faa'iidaysano, ilmaheena aan barno, iskuna nafaqayno. Ugu horeynta asxaabay, waxaan ka hadlaynaa yicibka. Geedka yicibka, miraha yicibku ka baxaan, magaciisa waxaa loo yaqaanaa gud oo saan uu u egyahay. Markuu yicibku soo baxayo, balag ayaa loo yaqaan. Markuu yaryar yahay, markuu soo weynaado oo cagaarkan oo kale yahay, gees ayaa loo yaqaanaa. Yicibku laba gel ayuu leeyahay. Gelka koobaad markaad ka saartid, waxaa soo baxaya wax kalmoon loo yaqaan. Kalmoonku saan ayuu u egyahay. Kalmoonkana markaa gelka ka saartid, waxaa soo baxaya wax laba qalbaca oo waxaa loo yaqaan beer, waa kan la cuno. Asxaabay, yicibka markaad soo gurtid, galka kore ayaad ka saaraysaa, kadibna kalmoonka asagoo ayaad qalajinaysaa, kadib waad dubaysaa. Waxaa laga yaabaa 5 sano inuu kuu oolo uusan kaa bululin. Subxaanallah. Yicibka geedka loo yaqaano sanadkii 2 jeer ayuu baxaa, guga iyo dayrta. Wuxuu ka baxaa meelaha hawdka, sidaa daraadeed ilaahay ayaa noo beerayo. Biyo kaama rabo, baadna kaama rabo, kaalay u guro kaliya ayuu ku leeyahay. Haddana geedka yicibka loo yaqaano, geela ayaa daaqo, caana waxaa laga helaa aad u badan oo daawo ah. Sidoo kale geedka yicibka loo yaqaano waa la jaraa oo waxaa lagu dhistaa, guryaha ayaa lagu dhistaa. Sidoo kaleeto yicibka markaad guranaysid, faraha ayaa ku gaduudanayo, cilaanba uma baahnid. Asxaabay, yicibka xageebaa laga helaa? Yicibka 7 qaaradood oo caalamka kama baxo, wadankeena oo kaliya ayuu ka baxaa. Wadankeena oo dhanna kama baxee, wuxuu ka baxaa gobolada loo yaqaano ciid bari sida Gambarey, Maaneed, Mirafalde iyo Galdogob, iyo wuxuu ka baxaa Marqaan, Haradigeed ilaa iyo wuxuu isku xiraa Matabaan, Garoore iyo Beledweyn. Allahayow ka dhig beerta raaxada. Intaas ayuu ka baxaa. Haddaba fawaa'idka uu yicibku jirkeena u leeyahay. Faa'iidada koowaad, yicibku wuxuu u leeyahay caloosha oo dheefshiidka ayuu u wanaagsan yahay. Dadka caloosha fadhido ayuu daawo u yahay. Maanta laga bilaabo hadday caloosha ku fadhido, yicib ayaan kugula talinayaa. Faa'iidada labaad oo yicibku noo leeyahay, waxaa ku jira yicibka calcium ka badan midka caanaha laga helo. Lafaha ayuu dhisaa oo lafaha ayuu xoojiyaa. Yicibka sidoo kale fawaa'idkiisa waxaa ka mid ah, gabadha umusha ayaa la siiyaayo, wayba gaduudanaysaa, dhiiggii ka baxayna wuu usoo noqonayaa. Yicibka fawaa'idkiisa waxaa ka mid ah, dadka hargabka qaba iyo influensada ayuu daawo u yahay. Yicibka subag iyo caano haddii lagugu daro iskuma arkaysid hargab. Yicibka wuxuu daawo u yahay xanuunka loo yaqaano anemiyada, maxaa yeelay waxaa ku jira yicibka bir baa ku jirta aad u tiro badan iyo fiitamiino kala duwan. Yicibka haddaad cuntid, wuxuu soo dhisayaa difaaca jirkaaga, wuxuuna xoojiyaa murqaha. Sidaa daraadeed yicibku aad ayuu muhiim ugu yahay jirka qofka bini'aadanka. Yicibku wuxuu yareeyaa miisaanka siyaadada ah. Sidaa daraadeed saan kuu sheegayba, yicibka haddaad cuntid caloosha ku soconaysa. Soomaalidu waxay dhahaan fadhi iyo food yicib la isku waa. Oo markay calooshu ku socoto, haddana waad oomaysaa oo waxaad u baahan tahay biyo aad u badan. Haddii aad cabtid biyo ugu yaraan 3 litir oo jirkaaga u baahan yahay, miisaankaagana wuu yaraanayaa, nafaqana waa hele. Sidaan kuu sheegayba, yicibka waxaad ka helaysaa tamar iyo baawar iyo daaqo, oo waxaa loo yaqaano dhaantada ayay dhalinyaradu tuntaan habeenkii markay yicibka cunaan. Sidoo kaleeto hadday marti ku imaato adoon wax kala haysan, yicibka waa soorta ugu wanaagsan oo dadka martida lagu sooro. Sidoo kaleeto wuxuu u dhigmaa hilibka. Yicibka sidaad ogtihiinba asxaabay, waxaa ku yar sucraadka xaraariga oo dadka kolestaroolka qaba iyo dadka dhiigkarka qaba ayuu u fiican yahay. Yicibka waxaa la dhahay dadka sokorta qaba wuu u fiican yahay, laakiin dhakhtar la-aan ma cuni karaan. Asxaabay, waxaa la ogaaday yicibka in dadka coronavirus qaba 2020 dad inay cuneen ay qaba coronavirus oo ay ku biskoodeen. Subxaanallah. Yicibka sidee loo isticmaalayaa? Yicibka waad karinaysaa, aad ayuu u macaanyo. Markaad karisid
wuxuu isku bedelayaa gaduud. Sonkorna juraala ku jirta oo sokor kuma daraysid, caano iyo subag baad ku darsanaysaa, soorta ayaad ku dhex darsanaysaa, cambuulo iyo yicib baad isku cunaysaa. Sidoo kale yicibka hadda qaali ayuu noqdayo, kiilada yicibka waxaaba laga yaabaa inay $20 ka badan taho. Bilaash baad kusoo guranaysaa, $1 waad jeebkaad ku guranaysaa. Asxaabay, yicibku aad ayuu wuxuu u leeyahay fawaa'id badan oo aan la soo koobi karin. Ka faa'iidaysta kheyraadka dhulkiina. Asxaabay, videoga like dhahaya, haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh, siina sheer garee si kheyrka uga faa'iido. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.